على هذا قاعد سمي حسن الشيخ بنكواي ودنك حوق اللي وحيه هم كسوق قاطان تالوينك إيمان أير ده هي دولتي منعنك أنا عارف أود الدولة نستعمر مركم عند الله يارتا أنا إلا سوق قبته وديسان كل شيء حدين نقطة قرن كي اللي جبت بادية الله اسمه اللي جبت بادية وحيربى اللي والله إني هل بولي إن ريح حلال ما دشوا هل بولي سيستم كمر كورة نبو حرانها لكن ما دام عنك عنده كوهينه بل عن وقت قادن أو صحنا أساس ديف كسب الله SNM كويسي SPM كدر USC كدر RRAT اللي كدر أنت لا صدر كل وقت حاجة لا صدر هذا كويسنا أظن نشيء حاجة هو كلا جسيني واحد كستي معي هاد أو لو صدرها خاين وضع ما كان نقطه ودي تبيان تهاي أقول له جو أجاده مل اللي ماشي جوكت أنت لو سورها سألو سودري سومالي أنا كابينت ميتين كسر حمر هي وزيرها أنت لك سيان يعني لقيت لي سنة يعني سو حتى أنت صالحنا سوق عنه dadka hadda la weeraray Shariif Sheekh Axmed baa ku jira oo ah ninkii burburkii kadib sababay in Soomaaliya ay doorasho gudaheeda ka qabsanto ninkii shabaab magaalada Muqdisho ka saaray ninkii hogaamiye kooxeedada xamar ka saaray ee waliba mar aad taageersanayd ma Shariif baa maanta lagu tilmaami karaa qof dawladda kale u shaqeynaya aniga Mareykanka hadda waxay iga talaa travel balka advisory sababta Sheekh Shariif baan idigu sameeyay ma kamid laba dawlad gudaha ka meesha kama shaqeyn karaan meel xamar kamid ciidanku ma joogi karo adigoo dawladda hel waxaan intii aad qoriyaal la soo qaatay laga siinay bila Soomaaliya ka saartoona darbiyan ka soo degaysa bakhaar la xadaya Madiina Bag waa madal la hubo iyo guryo mudan oo la mahashay meel casri ah iyo magaalo cusub halka Bellboys waxa gaalada maartay kaniisada Socdaan unuga yar oo hor socdo waxa uu ahaa meel zanaawi kuwa waaweyn oo baadiriyaalku ka dambeeyaan waxay ahaayeen Mareykanka Ingiriiska Yahuudda iyo Carab ku adeegtaan intaba marka maadaama nin alla ninkii Soomaali wanaageeda nacba uu qayb ka qaatay oo burburka Soomaali dadka aabbo u ahaa asalna u ahaa jabada markii la soo hagaajinay la soo abaabulay kulli horta reer galbeed baa kaalmeen meeshii loo diray oo ka soo hubka laga soo siinay kaalmada laga soo siinay Ethiopia marka cadawga dadkii cadawga u ahaa Soomaali oo soo jireenka ah yaa horta dastuurkan hagaaji marka legitimacy hadii la dhaho wax legitimacy waliya ma jirto bidata sitbay haba haatabo haddana baarlamaan baa jira baarlamaan yaa jira usoo ku imaaday ilaan doorasho kuma imaanin wax la hagaajin buu ku imaaday baarlamaankii laakiin hadda kaliya waxa la haysta waa baarlamaanka iyo madaxweynaha oo lagu doortay si uu hadii dadban oo aanan dimuqraasiyad la oran karin isla baarlamaankii ayaa ansixiyay oo kordhiyay muddadii baarlamaan baan awood u leh awoodda dastuurka lagu kordhinayo meel laga sameeyo baarlamaankii baa awood u leh laakiin wadanka markuu gaaro qof iyo cod uu gaaro oo muddo ka soo wareegto waxa weeyaan waa in dadkii laga qaaday universal suffrage waa inuu nin kasta codkiisa la soo baxa wixii ku meel gaar hadduu mar dhaafo waa in qof kasta codkiisa cod dimuqraasiyad ay noqoto mid dhaba mid magacu keliis kama aha oo maafi aan loo qabsaday oo maamul goboleedka ma intaa soo saari annaga heshiinayna adiga intii ila qaba anna xaggan kula qabani taas ma aha dimuqraasiya laakiin hadda maadaama laga baxay ku meel gaarkii in loo kaca oo loo ambaqaado waqti kastaba ha ku qaadatee cod iyo shakhsi Soomaali shacabkeedii guud la howlgelay way fiicantay wixii ay sidaa tahay wixii la dhodhoobay madaxweynihii la dhodhoobay baarlamaankii la dhodhoobay nidaamkii yara oo la dhodhoobay oo ay noo dhodhoobeen dadka dibadda ka imaaday kii baaba hadda maxay gudbiyey oo yiri madaxweynaha xilka loo kordhiyo wayna kordhiyay xilka ilaa 2027 oo aniga waa arkay aad u yartay runtii hadii la rabo in wax halbowle la gaaro oo Soomaali mar dambe sidoo kale ku soo noqonin marka uu yaraatay 3 sano u baahantahay 3 sano u baahantahay oo ziyaada ko nabadii wadanka la sugo oo al-shabaab la tirtiro la xaqo oo al-shabaab dambe ay jirin laba maamulka dawladda ay meel kasta joogto oo meel kasta sanduuq intii la dhigo laga codeyn karo wadi fahanti Soomaa saddex
dadkii oo muddo la siiyo axzaab iyo hagaajisteen oo isku dabadhaceen iyagana oo la og yahay afkaartii iyo waxa lagu kala duwan yahay iyo sida tartanka u galahayo ka baxsan wax dadka qaybinaya kana baxsan maxay ahayd qabiil iyo wax dhankaasoo kala dhaha gobol ka baxsan madhab ka baxsan laakiin un danti guud oo manifesto ay ku asalaysan tahay taa waqti bay u baahan tahay marka Soomaaliya horta waxaa lagu talagalay inay seenteedii afkeeda ay saa iskaga dabareegaysato dadka cadowga waxaan u hagaajiyay baan ugu talagalay ayagii baa haddana la leeyahay beesha caalamka iyo maxalani iyo kolba magac loo sheegaya imaaraadka iyo dadkaad garanaysay oo ku dhex jiray iyagana waxaa sii tuubaa meesha ku jira hadda maanta dowladnimada lagu sheegay horta halko shay dowladda waxa weeyaan inay dhul leedahay ay dhulkii ku astaansan yihiin iyada inay population ay leedahay a nation has to have a population magartaalkii in system kala dambeyn ay jirto say ku imaataybo xoog iyo cudud uu nin unification ku samaynayo ku sameeyey sidii Garibaldi iyo rag kaloo lamid oo fara badan iyo dadkii hore garanaysay Napoleon iyo kulli iyo inay ku imaateen nidaam la isla og yahay oo sida haddaan sheegayno oo kala doorasho wax lamid maadaama Soomaaliya la garanayo khariidadeedii shacabku inuu ku nool yahayna 20 milyan ka badan la og yahay nidaam dawladeedna hadda ay leedahay nidaamka in la dhodhoobo oo la hagaajiyo oo laga wada hadlo oo la isku diido oo la isku ogolaado la wadwado ilaa ma maxay ahayd midba kan ka dambeeyo oo ka sii fiicnaada kii hore magartaalkii oo xasiloonidii la sii sugo ayr loo socdo wixii la isku qabto maartay haddana si looga heshin lahaa laakiin awoodii dowladnimada marnaba ma qabto vacuum faaruq ma noqon karto madaxweyne u dhiibaa dowlad baa dowlad u dhiibtaa baarlamaan baa baarlamaan u dhiibaa ma dhici karto inuu faaruq u yahay oo leeyahay oo madaxweynaadkina uu dhamaaday ka deg adiga intee loo degi yaana degi intuu u degi waad fahamtay sooma fiiri madaxweynaha Mareykanka waxaa la qabtaa doorashada bishii 11 baa la qabtaa maalin cayinan baa la qabtaa weli oo dastuurka uu ku yaalo markii la qabto ilaa January 20th xilka iyo xukunka waxaa haya madaxweynihii hore waad gartay sooma haddii hataa laga badiyey mise labadii taam uu sameynaya laga badiyey asagaa haynaya ilaa ma madaxweyne cusub uu ku wareejiyo waad gartay sooma ilaa ma madaxweyne cusub uu ku wareejiyo marmar bay iyaga colaadda u dhaxaysa ay xadaaf tahay sida hadda markii Donald Trump markii ugu horeysay uu ka dhacay oo maartay Biden uu kala wareegay oo isku dayay inuu wadanka xoog ku qabsado oo uu dadka ku soo diray qabsada capital qabsada oo congresska qabsada oo meel kasta oo ku soo diray la rabay waxa la haystay waxay ahayd away dowladda marka ma garanaa dowladda waa ciidankii iyo nidaamkii bureaucracy civil service oo dhisnaa weeyaan waad gartay madaxweynaha always ka mid buu yahay laakiin systemka markuu asaga tartan ku jiro systemkaas asaga shaqeynaya mudane Faarax waxaan inaan ku weydiiyo marka kii la dhodhoobay oo aan sheegaynay ayaaba kordhiyey maxay ahayd dastuurka bedelay oo ku kordhiyey muddo u kordhiyey dastuurna shacabka bedelaya bas waxa bedelaya baarlamaanka markaa meesha jiray baarlamaanka laakiin qayb ka mid ah baarlamaanka oo aragtiyahan ka soo horjeeda in wax laga bedelo yaa diiday markay diideen dowladda madaxweyne xasan ay ogaadeen waa laga mamnuucay soo in qofka xildhibaanka diidan baarlamaanka loo ogolaado maahan intuu waxa weeye goobta u yimaado in codkiisa uu dhiibto hadduu diiday si ay ku dhacday horta way dhacday si ay ku dhacday anu hadda tirada iyo tafaasiishii inta lama socdo constitution markii la bedelayana waa 2/3 majority in la haysto weeyaan waad fahamtay sooma wadan waxaana ka imaaday lagu tilmaamo inuu yahay wadan dimuqraasiya haystay maalinkuu ka baxay maxay ahayd ka gudbay isticmaar ka gudbay ilaa yoomina hada waanu isla ognahay qaay kalaam baan ku sheegay anaga doorasho xalaal wadankan waxay ka dhacday 3 jeer waxaana marahaynaa dowladdii 13aad baarlamaanka hadda aniga aan ku jiro waa kii 13aad dowladdii 13aad baan maraynaa doorasho xalaal waxay ka dhacday 1963
markii Kenyatta la soo dooranay oo prime minister ka noqonay imaalkii waxay ka dhacday 2002 markuu Kibaki soo galay oo Moi wareejinay waxaa kaloo ka dhacday doorasho xalaal itihaad u dambeysay 2022 oo mucaarad madaxweyne ku xigeenaa laakiin madaxweynihii prime minister ki hore dawladda oo dhan bay dhinac ka jirto marka laakiin taladiisii sidii ku soo baxay asaga maajinka haba iska yaraado 200 cod waxay waliba dhiman bay ahayd iyo ku helay laakiin tii intaas saddex saakay imisa marka la sameeyay oo xalaal ahayn 10 ana ku sheegi 10 Kenyatta waqtigu joogay awood ma leedahay la istagto markuu 64 madaxweyne ma istaagahay maalkii markuu madaxweyne istaagahay ma declaration bal usamay markii mustacmarkuu tahay republic ay noqotay madaxweyne markii uu noqday baarlamaanka basmaray uu ka gudbay prime minister Allah ma jirto waa madaxweyne ali madaxweyne ku xigeen wixii waa la hagaaji ma 62 prime minister noqday 69 لا يستاهل لا يستاهل نقط قف كرسي شيء كرت ما جري 74 لا يستاهل فهم سوا 79 موي لا يستاهل مين بغشا 83 لا يستاهل لا يستاهل لا بيجيب كله يقول يستاهل ما جري 88 لا يستاهل 92 لا يستاهل 92 waxay uu kala dabray u shubtay xikmad buu sameeyay maaradku badiyay ninkii markaas ku soo dhawaa oo Matiba la oran jiray uu diiday inuu meelaha barkood uu hataa tago oo ka campaign gareeyo waa 92 waqti 98 waa la shubtay si toos cad baa loo shubtay dadka la shubtay baa ku jiray sababta halkii 2002 ay markay doorasho xalaal ka dhacday madaxweynaha xalaal ka dhacday oo maxay ahayd Kibaki markaana waana cod shakhsi iyo cod bay ahayd qof iyo cod bay ahayd 2007 waa kii uu Kibaki shubtay oo buuqa dhacay oo dawladda marka dambe waxay ahayd coalition government dawlad loo idin laga hagaajinay oo aniga marka deputy speaker baarlamaanka sharci aan hagaajin dadkii ka qayb qaatay oo la shaqeynay Kofi Annan baan ahaa waxa laga dagaalamay adduunka oo dhanba wadanka inuusan burburin kala haadin maxaa dagaalada ka dhacay gobolada ka dhacay dagaal ehel baa bilowday adduunka oo dhan baa soo gurmaday waa laga garay waxa la yiri mar haday tan ay in yar saay sibiq u tiraahdo lama soo celin karo ku cilmi qaata Soomaaliya ku cilmi qaata maxay ahayd meesha la DRC Congo ku cilmi qaata kuwaas oo dhanba marka maamul xum ayaa ku dhaama maamul la'aan ها وحويان 2007 2008 2013 بوب سعد بوب هو كينياتا وهي وهي زما 2017 هذا مو بوبي هذا كان زما وانا لا بوبي انا لا بوبي 54% كل شيء لما قالوا كمبيوتر يا لوسمي laakiin waxaan markasta iska ilaalinay oo dad nin kasta oo madaxa marka kursiga asaga la haystay oo prime minister Raila Odinga ay anigi dad xisbigiisa ku jiray war wadanka yuusan dumin hadduu dumo ma laga qaban karo malaha marka nidaamkii hadisnaado balla hadla qaladaadka dhacay si loo sixilaa in yar baan wixii u socotay wali hadda sixidii kaamilkeed inaan talan hadda aan rajaynana inay sixidii kaamilkeed ku soo baxdo سؤال قرتي ما لكن وحان ديني إنه ودن كلي راهدو حق دراها كدعي وعلى إسبوعي على ودن كي أمبر برينو وأنا ماشي كلي وأدون كordon بأفريقيان كordon بعد الأسبوع ما هذا نكستو أمسية هنتيجي سيرة كنا بتجلي سفي عن وهذا فهمت سما أنت بدور الشيء ورد علينا حرام بيوبنت وهذا فهمت سما لكن وحان إلى علينا حسلوني دي برينكمان شيبكي مركي جيسك أنتوا لا تقولنا كم بربرنا مايا سؤالي لا مش بين ها ما حد لا ده أنا اللي شفت بقى ديار وين ودن كي أنا مدينة ودبل سكون نقضها هذا يجي سكون كانوا هذه كي أو نبضها والدولة دي كجرتو ودلك أي وضع ما مشوا تو السبن وحي أنا وجين وكذا عاي Soomaaliya oo dawladda hadda federaalka aysan dalka wada maamulin hadii ay isku dayda inay wax marorsato oo doorasho qaabkeena rabta u qabsato aan heshiis lagu ahayn sidee xaalku noqonayaa
horta dhowr siyaabana Soomaaliya faa'iido u leedahay dhowr siyaabana Soomaaliya dhibkeeda uu ka ballaaran yahay Kenya Kenya waa 44 qabiil oo Afghanistan markay ku hadlaan bas Afsaail ku hadlaan mid kasta gobolku ka yimaado garan karto wadban sama meesha loo baday 100% ma gobol suuradiisana ka garan karto shaqada isku malaha intaas oo luqadood bay kala leeyihiin wadad haday iyaga dhaxdooda colaad ay dhacdo ay adag tahay sidii la isku soo celceliyo maxaa way kala duwan yihiin laakiin waxay faa'iido ku qabtaa Kenya adawga Soomaali ee leedahay oo kale iyaga malaha galbeedka oo dhan baa ilaashanaya waa garsama cid kasta oo dhan baa ilaashanaysa adduunka Kristaanka oo dhan baa ilaashanayaan kulli inay la dhoobo oo la wado oo maartay in dhibaato ka dhicin heerkaas hadda aad ka cabsanayso oo kale waa laga ilaalinayaa waxa kugu daliilay markay anaga dhibaatada nagu bilaabtay yaa imaaday Mareykanka way soo direen naagtii la oran jiray maxay Janay Fraser kuwa mid bay soo direen ninkii Secretary General United Nations Kofi Annan bay yimid eminent African personalities bay imaadeen kii waxay imaadeen Mozambique Botswana John Kufuor waxay imaadeen kii Ghana John Kufuor la fariistay aniga la sheekaystay waa aan maarta uga hadalnay adi shan bay imaadeen madaxweynaha Jakaya Kikwete Mkapa magaalada halkan oran jiray waa hatta kuwii hore adi dad fara badan baa imaaday kuwa sii jiray iyo kuwa sii maartay xilka ka dhacay oo dhanbo Afrikaanka oo dhan baa la soo diro reer galbeed soo diro ordee gaara meeshi intaana reer galbeed way nagu dhex jireen wana dhex ordahayeen si uusan burbur u dhicin oo wadanka uusan si Soomaaliya gacanta uga bixin Soomaaliya imaatay adduunka oo dhan baa inay gacanta ka baxdo halkaas bay ugu sheegay adduunka oo dhan yaa raba Ethiopia rabta reer galbeed oo dhan baa rabaan Arabtii baa rabaan khayraadkeedii iyo nolosheedii iyo dhulka ay leedahay iyo badda ay leedahay waxaas oo dhan baa loo diidan yahay inay soo noqoto macnaheedu soo noqoto wixii bay ilaashan wixii hadda la boobahaya waxna waa la reebahaya in la soo saaraa la diidan yahay macnaheedu Arabtii baa yaa ku dagaalamaysa in la soo saarin waad gartay Soomaa dekadihii waxa Dubai baa ku dagaalamaysa Soomaaliya inay burbur ay ka bixin maanta ma bilaabanin maraadka 77 dagaalka la gelinay waxa lagu geliyay sifay burbur uga bixin oo shidaalkeeda u soo bixin way iska garan weeyday taa waxa weeyaan waa disadvantage waa the downside the positive side baan ku sheegi waa hal identity waa hal qabiil waa hal luqad waa hal diin waa hal suurad magarta halkii kulli way wada dhasheen kulli waa isku hilba taasa marka waxay Soomaali ka burburi weeyday oo adduunka hadda iyada oo burbureen haddana ay qiimaha u leeyihiin oo meel kasta oo dhanba Kenya iyo adduunka East Africa iyo Africa iyo Europe iyo meel kasta sharafta u leeyihiin waxa weeyaan waa dad hilba isku isu danqado meel meesha isku arkaan oo dibadda way isjecel yihiin iyagoo isku dilay wadanka gudihiisa dibadda markay isku imaan haddana way isu dhimanayaan waadi fahamtay Soomaa marka waxa weeyaan annaga halka aan qabno waa hal adduunka cid kale oo qabta aanan jirin haddii ka tag weyda yahuuda qabta waadi fahamtay Soomaa cid saa isku jecel ma jirto taasa annaga positive Soomaali positive way taasa anoo Kenya oo qaran kale ka tirsan iga dhawaajinaysa oo raba markasta oo dhan wanaageeda inuu in ma aragtay lagu taliyo oo lagu howlgalo waad gartay Soomaa laakiin Ethiopia way rabtay inay burburto hadda ka hor baan sheegay hadda maxay ahayd waxa weeyaan waa leesh luguna baan kula jiraa kala baxsanay magarta halkii ilan galbeedkii baa dantooda wataan markay hadda maalan ay Francisco oranayaan anaga dikad Kenya hana laga siiyo oo badda hana laga siiyo badday u jeedaan ma aha Vanga iyo Mombasa iyo meelaha ilaama fog ma aha waa Kiamboni agteeda diisana ku sheegi shidaalkii isku haysto bari isku dacweynay niman total la dhaha ya danta wati dadaalkii ku sameeyay Ilaahay baa sheegi kara marka wax baa jira khayraad oo la isku haysto Macron hadda koor wuxuu ku yiri Kenya Ethiopia wuxuu ku yiraahday aan garab qabto Ethiopia ciidan bad baan ku hagaajinaya Soomaaliya qaybsada Ethiopia nu saqaato Kenya nu saqaato ana garab sinana simple very simple as that waa faham Soomaa waa wiil yar magarta halkii oo ay ka maqan tahay oo maxay ahayd macallimadiisa soo korisay iyada
oo asaga saa u haysa soo kora yar inta leeg ya haddana markii dambe uu guursaday waay so weligii baby-nimada kama bixin somebody who's been babysat by his teacher who turned out to become his wife up until now marka way ka maqan tahay in Soomaali aan la qabsan karin ma oga aqliga xun oo Faransiisku leeyahay waad gartay Soomaa lama qabsan karo Soomaaliya waay waay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madana Farax dawladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dabcan isku aragti wada haydeen wada difaac jirta marar badan madaxweynaha haddana xilliga mucaarad buu ahaa wuxuu ka soo horjeeday Farmaajo 4 sano in wax ku darso ka soo horjeeday oo wuxuu lahaa 4 sanaba in dalkan doorasho laga qabto ayaa sax ah hadda intuu dastuurkan uu la ansixiyay uu u oleynayna wuxuu goob fagaaraha ka yiri dastuurkan hadda aan wadno ee la ansixinayo ani dawladdeeda laguma dhaqi doono dawladda soo socdo ka bilaaban doona haddana maanta isaga isticmaalaya maxaa keenay madaxweynuhu wixii shalay uu ku hadlayay maanta intuu waxa weeye garamar in wax ka soo horjeedo oo liddu ka u sameeyo أنا هرت قرب أنوها نكلي هذا هذا فرماجو كل هرت وأنا قناة رجع كل سياسة مركي بالله بهين وأنا قرن وأنا ما لبض ما أعرف كوذا عشان وكوذا قضينا يجو أنا مركا أوديجي سياسة الجوبل كالصومالي ده نكلوس وهرني وتلا ويتصير فارم معلم بوها أنا الصومالي أنا أقول لهم دولار وأنا جدا أدور ربه فرماجو نفي عم بوها هذا كذا سما هل مدبن كواي على ذاك هدو سمي حسن الشيخ بن كواي ودك حوق الوحي رسالة كل شيء شذالك إلا سيد دايو ورمق رسالك إيه شذالك إلا سيد دايو إماراتك قالت إن كل إلا في جيو عدو قاعد كوما نحن ولا نكره الحكومة نحن ولا نكره حتى ترى ملكي كم أسكيل علني أو كم أسكيل علني أو كم أسكيل علني أو كل بكو أترى نبكي هذا له مدة دير بان ربي إيران كجذو إريتريا إنه وحلق بصدق وعيدا يقرب يقول نقطة سكة طبعا مالمي هو روان كري واي لكن مالمي دمبو أبي نقطة واركي جوي يسبدلها هي جيس أفريقيا هذا أنا جا أكل حدي أسكو كيري أو تلعب عليك بقاضي لكن وحيابه أن كربي وعلى الأذاق أو تنهد إنك نسميه مركي أنت درجة قرنيس هي هم كسوق قطان تعلوينك إيمان أير ده هي دولتي من عنك أنا عارف أود الدولة نستعمل رسالة كل شيء مركب عند الله يارتا أنا إلا سوق قبته والرئيسان كل شيء حدين نقطة قرن كي اللي جبت بادي الله اسمه اللي جبت باديو وحيربى اللي يقول لايني ولا بتباديني هدات سيد دايسو ملايين بعد ما هذا كونغو إمساك الدماتي صدق سنة صور دافني 6 مليون أو حير ما كلماتي markii iyada ahayd hadduu kabiila nin adag uu noqon lahaa oo uu meel kastoo marka laga hor imaado bahalkan mucaaradkan iyo kulli uu si fiican u karbaashi lahaa dowladaha isleeyahay way garab bay u yihiinna uu awood ziyaado uu ku bixin lahaa barna la heshin lahaa barna adduunka u geyn lahaa waxyaabo badan uu samayn lahaa dhibka maanta dhacay dhaceen wuxuu ku adkaaday oo uu ku soo wuxuu ku qancay halaha macdanta ku jirto gacanta kuma haysa kuwana iska aruursa meelaha kale waxay doonaan aadan makmawads magaalkii ereedeeda fiiri iska inuu meelaha iskaga noolaado dheeman kana aruursado wixii kale oo hanti inuu aruursado ciidankaasu ka maxay wixii baa ka badan laakiin qarannimo rasmi ah oo wadankiisa intuu u danqaday inuu mideeyo hadduu beriga kaa ku bilaabi lahaa maanta meesha ay maraysa ma marteen hadda waxaa meesha ka shikedi wuxuu ka ahaa taxi driver Belgium raysala ku shay aragti ma gaarsiisan wadankii in la mideeyo ma haysto 10 wadan ku dhowaan ay jiraankee nin kasta intiisu markaa mustariga meesha waxay iska noqotaa commercial thing reer galbeed jiinihii nin kastoo dhan baa soo dhex galay Soomaaliya hadda tibay ku socotaa أنا كل شيء رئيسه معنا الإمارات كهذا بحكي أرسلان بعدين بيأرسلتها أنا مغشين كلام أوي بعدين بيك أرسلتها شذلك بهور استغربتها حكومة ربتها حمر إلا مدده حكومة يسب مران سيف فوقين وكوا كانوا بدن وكدر يجا جرا وكوا قرصونا بناك السوديين وصل عربتي يجي وهذا قرصوا قلبات كبا جرا نمنكي موزات كبا جرا بقول بالبجران على الأريق باللو بهنيه على الأريق ما أنت لو بهنيه ديمقراطية أرت مددني وإحنا شيء هل بولي نريح على ما رشوا هل بولي
سيستم كمر كورو دنبو حارانها لكن ما دام ان قعنت ku hayno bal aan waqti qaadano oo saxna way halkaas ma uleys waqti aan ku qaadano aan saxno aan maxay ahayd aan nin cod gaarsiino aan al-shabaab ka saarno wadanka aan nimankan ajnabiga oo wadanka baabi'inay imaaraadka ka kutay aan saarno xalana aan ka soo xirnay nimanka inka markii saal isku tashado markii la isku tashado wadan yar oo Eritrea la dhax يا مريكان يا رجال بيض أردن بقى تلعب أنت كقاعد كريم وهذا سكوت الشذي فهم سما قرب أنا جبهان يوكل قرب ما ينسين هذا كور حتى لا تونا جبهان يلا وحلا متكها أنا حلا قبسنه تركيا هذا ديار بنويه سومالي ويه تركيا سومالي ديار بويه إنه عيد ما درسوا إنه هو ما أرتي عصر أوسيو إنه مالك استورنا كده يعتروا والله كنت أنا سنة أصلاً الشيء كاسر إنه غيبتي سكاته وأنا أقولني هذا السعودية مركز اشتغل كسوق لنا ين أرامكو أمريكان كسوق لها 5% كلمة كلها ين وين بري أصلا هو بارل كوها مقرن $0.2 بمركز وراها مركز دنبو بقارب $2 ببارل وهذا الولاية بقول لما تمو مرحية يا $2 ببارل وين مركز 73 دقائق كده يحكي كدم بي يفيصل he used that as a weapon واستعماله هب وين كرنا وقاضي وأوبك يوحو دنبا مركز صباحي هذا أنا ما أنت وحن لنا شاكر دير محا خلد محا صحي وعلى غير في عين مدير هلو ما أعرف هلا كردستو هلا جارسيين يعود محل شخصي يعود هلا جارسيو عدو الصوماليين كل حجرون نبه هلا صاروا وطن كان بربر هلا جيل عليه ويا سياد برا يسوى أود بدن وضلك ولا معمولة يا مالن على غيري حسن شيخ وحمر كليها معمولة ولي معارض كهو بيتنا إلى جوجان وضلك إن بدنا كم إذا أنجع أنت كوهين سيدي أود وهي سنكر ضلك حمكوش يا زياد برا أرتني ودني بوها ودني أيوها لكن معلومة قدام بيسي سوء أكسيدنك وقالي ويكها الله ذي وحيوها الله ذي بنكو شيء مساجة بدود بنكو سودستيات برا ويبناين SSDF كسو بلاو SNM كويسي SPM كدر USC كدر RRAT اللي كدر انت لغا صدري كل وقت حاجة لغا صدري هذا كويدنا أظن نوشي حاجة هوب كان لغا سيناي wax kasta iyo maxay ahayd oo loo soo diray arsaba cadawgii soo jireenka ahaa oo Soomaali ka soo horjeeday yaa soo diray أنا هذا المدحين الله يجلس قمتن ويستاجرها أنا ما تقول شيء قاعد كان الله سفي عم قاعد كان الله يجلس هو وكا إنه سامعني لا يدي كذا دادي يكحش هذا ما كانوا بدأت دور كنا نقف باكل من لهت أو يرى أنت الوقف خائن الوطن لماذا هذه ولي قاعدين تبيان أو جاجوس ما أعرف سامع الله بدأ ما أعرف ولي هذا كويدين ما يده وما عرفتي سؤال بنك ويديه ما أعرف سما واي وبقول لا تملي وقف إنك ستوب population بين أي شكلان أو سيسكو عداديان يسيسكو ميستان يسيسكو بابيان وما تسكو بابي سأدونكو سنجر والعبسنا يا عبسي خاين الوضع ما كان نقطه ودي تبيان تهي قول لقو أقادو مل اللي ماشي جوكت انت لو سورها سألو سودري صومالي أنا كابينت ميتين كسعود حمر هي وزيرها انت لك سيان يعني لقيت لقي سنة يعرسوا أو قبل قتاتشي عصفة قتاتشي قبل الديلا يرجع قرني سيدي سنة وزيري بقى يا روحين بابا يا من نقطة وحيرو معنا الحين انت كررنا بجاجوس بوحين ما لحد يدنا بيدقين إلا حتى بدقنهم بدقين لا حتى غلط مدحتيدنا دقيقين كستoo sidoo hore ay dhahayn si la sheegay madaxtooyadana way degan yihiin marka wadaninimada alladeeg bay u baahantay
waayahay hadda hal adeegana marmarka barkood inaad caruurtaada aad kurka ka jirtad u baahantay migraalkii markii uu qaa'inka bato oo jaajuuska u bato oo cadowga kala heshiin oo ummadiisa baabi'inaya u bato hal there is only one treatment for somebody who betrays his nation ninka qaa'in alwadan noqdo one sentence baa u taala geeri waa la dili eg Austro-Hungarian maxay ahayd berigii jirtay oo maxay ahayd nimankii awoodda badnaa oo empire ahaa waxaa la dirirahay Napoleon Bonaparte oo Francis buurihii iyaga u dhexeeyey yuu ka gudbi kari waayey Austrianskii meelihii intay hub gashadeen waa niman Jarmal Austrianska mogtahay yay ka adkaadeen oo waa la gudbi waayey wuxuu waxaan rabaa nin ituso meesha intaan ka galo Austrian intaan ka galo gadaal aan ooga imaado markaa ciidamada aan dhabarjibin ku sameeyay buuraha meel ka bannaan ani waan waayee yaa itusi karaa waxaa la wuxuu rabaan waan siinoo dahab nin baa loo keenay wuu negasheed gareeyey dahab boorse yuu negasheed gareeyey ciidankii uu qaaday habeenimo waday meeshii buu mariyey halkii baa ciidamada oo dhanba ka soo galeen gadaal bay ka soo mareen dhabarjibin bay way jibiyeen waxaa loo keenay isagoo aad u faraxsan Napoleon ninkii waxaa noo fududeeyey yaa waa kane salaan la yiri inuu salaamuu rabi halkaada tagnaa uu yiri dahabkii intuu boorsadii qaaday iyo u tuuray gacanteeda ma gelinay bir wadankiisa hooye khayaanay asaguna kaalmeeyey oo ku dangaaray mana arki karo I'm not going to shake hands with somebody who has betrayed his motherland traitor who has betrayed traitor balda oo tuuray qabsuu yiri tanaa noo dhexaysan adiga saaxiibtinimada noo dhexayn marka horta traitors waa in la iska ilaaliyaa hadda waxa socda kulli waxay leeyihiin astaamo ajnabi ay soo faangareynayaan haddaan tusaalaha soo qaadno dadka hadda la weeraray Shariif Sheekh Axmed baa ku jira oo ah ninkii burburkii kadib sababay in Soomaaliya ay doorasho gudaheeda ka qabsanto ninkii shabaab magaalada Muqdisho ka saaray ninkii hogaamiyay kooxeedada xamar ka saaray ee waliba mar aad taageersanayd ma Shariif baa maanta lagu tilmaami karaa qof dawladda kale u shaqeynay أنا أرتي شريف وأنا قال له وسحبكي لكن من ما كل شيء نكست أنا ماشي وجهي وأنا لو أسوكي كم مرة محيط فريق لنا أجنبي حقيقة كان غنك أي كم أنا قني ويدي أي كم قنتهاي كم مرنتهاي ما جرت إمارات كولي بوحة كنا نحسن بربر كصومالي إنه أرشود إنه مارتي بربيالان هذا الصومالي بربرتنا يجي نقول هنا هذا ينولاتنا يجي مارتي إدي مريان ويفهم سوا وانا اللي سوق عندنا وربا اللي سوق عندنا سمعت كرتي ما اجنبي جا صومالي دي كل حجره وانا اجنبي با يقول اديغان هيا بس اجنبي ما لا شقين هيا وانا قرب ايه بس جاجوس ما مو هيبو والله فانت ما صومالي الحديث ويفهم سوا contrary to the universal perception about this markii ka bedelan adduunka oo dhan wuxuu ka aaminsan yahay kastoo ajnabi dantaada iyo danta ajnabiga mar isqaban karaan laakiin dhib badan baa jira hadda maanta anu ma kala jecel hortaan ku sheegay hebel Soomaali ma kala jecel wiilkaygi iyo midka maxay ahayd raas caseer jooga iyo kan jooga maxay ahayd Zeylac jooga kan Djibouti jooga kullaan isku simaan u arkaa sharta Soomaaliya soo noqoto marraba sharta Soomaaliya soo noqoto marraba laakiin geesina waan jeclahay geesina ku sheegay waa jecesha aniga Mareykanka hadda
waxaa iga taallaa travel bahalka advisory sababta sheekh shariif baana dhigu sameeyey maqladkii sababta sheekh shariif baa ligu sameeyey anoo garab u berigi maxaakiimti oo intaan wafti aan madax ka ahay baa keliya intii laga saaraa inta kale la siiya visa wax aan ka dan leeyahay iyo wax ay qiimo agteeda ka joogtana ma jirto it doesn't make any difference maxaan weligay uma tegin aniga bas dalxiis bas dan uma tegin maba dadkaanoo nin asagoo yar adduunka kusoo wareegay baan ahaa marka waa jacayl hadday noqoto wadanka soomaalida ay degan tahay iyo kenya meel ka qiimo badan oo qofka ku noolaan karo inay jirin baan ogay iyagaa la oo qabowga iyo dhaxanta iyo qurunka iyo waxaasoo dhan ba ilaahay iyagaa maaragtay dhibkooda ilaahay baa sheegi karaa afkaanka u gumaysan adduunka u gumaysanayeen gaajayna ka cararayeen oo waxba hanti mayan haysan oo dadka inay khayraadkooda bawaan bay rabeen dalna ma haystaan oo dalka qabowda adiga aragti u eegi waad faham sooma marka anigaan ba rabinba laakiin garab baan u ahaa maxaakiimtaana garab ugu ahaa inkastoo markii u dambeysay la heshiiska lala heshiinayay oo galbeedkii aankaasoo kale oo 275 asna la siinaya ninka odayga kale looda taasoo dhan aniga ay dhibaysay oo aanan rabin oo siyaasad ahaan wax badan oo markii aan kula taliyay ay qaadan awood badan asaga gacanta ugu jirin bariyaana runta ku sheegay nimanka al-shabaabka oo marna heshiis aanan rabin yaa kaga awood badnaa gudaha oo iyagana mowqif adag haysteen asagana xalaal oo wuxuu rabay Soomaaliya inay sharteeda soo noqoto laakiin inuu qofka madaxweyne waa inaan noqdaa magartalkii in aan noqdaa you're an interested party adiga baa rabtaa inaa meesha lagu doorto ciidan baan keenay waana ka fiijin ninkii laakiin hadda mudane Faarax mucaaradku hadda waxay u socdeen wuxuu ahaa in mudaharaad sida ay sheegeen nabadeed ay qabtaan oo madaxweynuhu muddo dhaafa xilkiisa lagu soo horjeeyo iyagoo ku caadinaya in arrimaha doorashooyinka laga heshiiyo marka xasan maxaq buu u leeyahay in madaxweynihii isaga shalay xilka ku si nabad ugu wareejiyay inuu maanta weerar ku qaado gurigiisa uu weeraro waliba uu yaabo la soo qaban yaa soo sameeyay weerarka xasan yaa bilaabay madaxweyne xasan dowladda bilowday weerarka labada nin ba ku qaaday shariif iyo xasan al khayr oo intee lagu qaaday guryahoodii adu meel xamar ka midan bay markaa deganaayeen oo mudaharaadka inay ka hoggaamiyeen meel xamar ka mid laba dawlad gudaha ka meesha kama shaqayn karaan meel xamar ka mid ciidanku ma joogi karo adigoo aan dawlad ahayn ciidamo awal buu joogay dhageyso awal iyo awal laan baan ku sheegay dhageyso waxyaabaha aniga farmaajo aan runtii xisaabtankiisa iyo dhaqankiisa iga dhibtay waxay ahayd in loo ogolaado dadka in ay muujiyaan hub iyo teknika iyo waxyaankaasoo kale be tilaabo adag laga qaada waay kulli laga aruuriyo Soomaaliya dadku way hubaysnaan waa la dagaalamay ani dhageyso waa laga gudbay waa la dagaalamay hadayba dawlad jirto marba hadii dawlad lagu magacaabo hubka iyo awoodda ciidanka iyo xabadda la ridayo has got to become a monopoly of the government, the state. wadanka markaa jiro xukunka markaa jiro yaa ka gacanta ku hayn shacab gacanta kuma hayn karo faham soo non state actors kuma hayn karaan gacanta waa laga fiican yahay wax badan baa yaa aniga aan u arkaa inay ka qaldan tahay wadankii wixii baa waxay iska noqdeen caade hadda oo waxay iska noqdeen dhaqan hadda maanta wixii dhacay wuu dhacay in laga wada hadlo oo sidii looga gudbi lahaa haddana oo transitionkii iyo muddadii laisku afgaran lahaa looga shaqayn lahaa muddo kumeel gaar magartalkii in laga shaqeeyo waxyaabihii siiba ani waxaan rabaa in aad looga shaqeeyo hal qof iyo cod xagee laga qaban marka mudane Faarax guddiga anaa kuu sheegay waa in horta hadda halkan qorshihii laga saari lahaa meelaha nabadda aanan jirin al-shabaab looga saari lahaa la galo أنا وإحنا مثلا على الشباب اللي يحبوا الله يسهل كان وضنك. ديجانا بدون بنتي مدحين حسن وجهه فينا عن كل شيء. مدي والله يسهل كره. ده ما هدي جرته. إذا كسف عن فاسيليتيشن كيسي نظام كيسي دقاريسي ويحصلون بالسكود بريده. والله يسهل كره. إذا حلال أو صومالي أو السف عن وطبعا ونكسب بعد ياره. وضنكي عشورة الأمرية وحنا نص بليون مسكنا $500 million ودن انت عليك
half a billion dollars way aad bay ugu yartahay annaga baarlamaanka Kenya keliya yaa 300 milyan oo dollar ay tahay budgetkiisa baarlamaanka keliya lama dowladda militariga caafimaadka cilmiga ya tacliinta kulli aan la gaarin marka half a billion dollars waxay qaban kartaa yar reer galbeedna si hore uma kaalmeynayaan double kaalmeynayaan kulli way goosteen haddii muddo yar la siiyo oo shidaalkan la soo saaro ilaan 10 bilood gudaheed baa lagu soo saaraya waddanka wuxuu heli doonaa credit worthiness aan caadi ahayn 4-5 bilyan si fudud bay soo geli kartaa waddanka hadda sharafta iyo qiimaha iyo waxaa kule asaga oo $9 bilyan keli haysto hadday 10 bilyan oo dollar mise 6 milyan oo dollar ay sanadka soo gasho meel kasta waa laga kabi karaa waxaan waynu isla wada leenahay annaga walaalaan nahay hal qoys baan nahay hal family baan nahay hataa inta dagaalamaysa shalay heshiis bay ahayn saaxiib bay ahayn laba aan saaxiibtinimo soo marin ma jirto way fahamsama xasan cali khayri xasan sheekh maxamuud saaxiib bay ahayn lillahi saaxiib way garsama حسن علي خيري فرماجو أصدقوا أو حسن علي خيري وحسن الشيخ محمود أي صاحبيين يهدنا برايم مينستر كانت هو وجه شيخ شريف سيدي سلامي ده ما لسه فريقنا أنت حابب الله سكوا هذا الله أنت لا وضح الله وجد اللي هجاجيو جد الدور الشضو أو سكوا نفن ولا جه الشيء قدومي هدي وحسن كانوا كحيان كانوا محيد معارض كانوا لكن وحي بعد مدحوينها كان صدي او وحي جابها laga soo horjeeday الدنيا taasa kamid ah ma taa iyada waa mid laga wada hadli karo sifo waxnayto credibility oo hesho waan ka wada hadli karnaa anaga dhex geli karnaa oo ka dhameyn karnaa laakiin mudayir oo maaragtay fiican laysa siiyo oo wadankii la gaarsiiyo meel hal meel dhinacna looga soo jeedsado wixii la oran jiray al-shabaab wixii la midka la tirtiro shacabkiina la siiyo haddii irin kaarka baa la siinayaa waxaa la siinayaa maxay ahayd voters kaarka la siiyo wax kastoo dhan ba la siiyo waayahay bilo ka hor qof iyo cod in uu xasan qaban karo aad baad waxa weeye uga soo horjeeday waxaad lahayd gurigiisu ka qaban baad lahayd maantana waxaad leedahay waa la qaban karaa bal isu kay qabasi anaa ku sheeg horta qof iyo cod in la qabto lagana shaqeeyo waqtigii farmaajaan aniga diyaar waxa iska daa midan xasan waqtiga farmaajo yaan waxaan mar kastaba diidanahay dad intii qol lagu xilay ka bacay lacag la siiyo ani isla misal soo hagaajista marka hore way fahamsama midda iyada dimuqraasiya lama dhaha midda iyada waa maafiyanimo weeyaan waa gangs oo kale you get my point waa political gangs it doesn't work right ninkana wixii ka baxay buu rabaa dan inuu arursado oo u gaaro ma ahayn aniga waxaan idhi meelaha barkood waxaa loo baahan yahay in shaqa laga qabto hadda hata kumalihi berri baa la bilaabi karaa oo qof cod la samayn karaa waxaan ku leeyahay ilaa 6 bilood ilaa sanad in la siiyo oo laga tirtiro meel kasta oo nabadda la sugo waa la sugi karaa nabadda aniga faarax kula hadlay waxaan aaminsanahay oo militarinimo soo marin haddii 3 bilood 4 bilood inta aan ka shaqeeyo system dawladeed oo iga dambeeyaan aan helo waan tirtiri karnaa orod baa lagu tirtiri karaa waayahay kowde marka laga tirtiro haddana maamul meesha laga hagaajiyo meel kastaba maamul brasabiyihii iyo DCLkii wax kastoo dhanbo halka shay oo kasoo horjeeda mar kastaba waxaa waaye madaxweyne maamul gobol adduunka meel kale ay ka jirta malaha waana Ethiopia ka ahayn Ethiopia meesha u dambeysay garan Ethiopia waa qowmiyado kala duwan oo israbin oo kala guyi rabay haddana kala guyi doonaan anytime way fahamsama laakiin dadkii hal luqada ku hadlay madaxweyne Ethiopia inuu hagaajiso mid kastana xuduud u leeyahay Ethiopia 2004 markii la dooranayay Abdullahi Yusuf yana aniga aan qoraal dheer ka soo jeediyay qoraal dheer wajaa Kenya oo dhan balqaatay oo ku yiri waxa laga doonayaa midan first of all bilowgii disintegration of state and society Soomaalida inay cadow isku aragto ومجتمعي وكلا جورو
reebel ya bara quraanka kariimka si sahlan oo hab casri ah Al-Furqaan Quranic Online wuxuu bixiyaa waxbarasho qaab online ah taasoo ku sahlaysa barashada quraanka kariimka ay ixtiraamto oo ay respect garayso waxa heshiisyadii iyo wixii korreeyay oo la galay sabab garan marka iyaga way ku qasban yihiin in wadanka uu aysan xasuulindiisa gacanta ka bixin gacan ka bixiskaas la diidan yahay waxaan intii ay qoryaal soo qaatay laga siinay bila Soomaaliya ka soo tuurana darbiga ka soo degaysa bakhaar la xadaya adu hadda xamar waxaa tagtay waagi dhaweyta hadda shidaalka arinteeda xafladii dekada loo qabanay waa joogtay maxaa soo aragtay wallahi waxa aad soo farx geliyay arkay wala fariistina marka Turkida oo sheekaysanay madaxweynaha wax kasta oo ma sheekaysanay Soomaaliya hadda 10 bilood kale sanad kale ay joogtay laba saa isticmaalkiistii waxa isku dirdiray waa gaaja ana runtii ku sheegay ليش ذلك من فرح سبل نما اسكو دردير هيسا ليش ذلك ماشي هذا مركي ان كو شيغي العقد هيركا لا اي سو غشو marka saa hada loo soo shawda loo siyo waxay noqon doontaa literally ceelka ugu weyn adduunka uu noqon doonaa misanari pressure ku socdo waa pressure kiisa ma aha bambal soo turayo marakibtan inta garab dhigtaan bi buxsanay way tay wal xiriya hada wal xiriya wal reeb afka laga xiri hada la siday waxay samada ku dhufan way kowde 30 sano 40 sano saa ku socon Soomaaliya sawalnima isku geeraysa marka hadii shidaalku soo saaro waxa shidaalka la soo saaro ana Sacuudi waa shidaalhaysan soo noqon laamaant weydii Sacuudi waa hanti haysan hatta hantida hebel buu lacag jecel xoolo jecel yahay la oranayo way iska dhamaan way waxaan rabaa mudane farax nin aqoonyahan oo aad wax u akhriyay waa tahay muddo dheer radii siyaasadda ku jirto wax badan oo aad ogtahay shidaalkan waxa la yiraahdaa markii la soo saaray waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinka ka dhashaan baa kamid ah dagaaladu ay ka dhashaan oo Soomaaliya dawaan ognahay halka ay ku taala iyo sida dawlad badan aysan u rabin inay nabad iyo barwaaqo iyo waxa weey dawladnimo taam ay gaadho waa tagtay Turkiga la kulantay Xasan iyo dawladdu la kulantay ma laga baaraan dagay baad is leedahay shidaalkan inuu wax dhibaato ha geysan soo saaristiisu ana hadda ku sheego wax dhibaato soo saari ma dhibaato uu geysan doona mugtahay wadam waan ku bilaabay Soomaali waa hal identity hada Nigeria oo kale meesha aad looga hadlo waa Nigeria dawladii baa heshiiska gashay dad ogooni la dhaho masaakiin oo yar oo minority ah dhulkooda waa laga soo saaraya ogooni marka meeshii musuqmaasuq badan oo iska jira beebihi bay furanayaan wax kasta oo dhan way shubanayaan markay shubtaan haddana hadee ma reebi karaan environment-ki bay haleynaysaa wax badan baa iska jira Soomaaliya ma Soomaaliya ma dhaysta iyada Soomaaliya wax alla la wixii oo conventional ordinary human beings oo adduunka aanu ku garanaynay ka suurtoodo Soomaaliya kama suurtoodo هذا صومالي حمر عادي تكاد مانت أنا هبينا ما سعود ما ليز وانا كلك بنكو جاري وانا بت وما قال حمر جات وما قال حمر جات مركز سوق مرتو صومالي حمر آتك تمانتا وحنا ذكر كلا أنا هذيك أيام بالله وضع نور نالك مساعد كي قبل صومالي بكوس استاجي وكورنيسا ولا لو حباسي جاي ninka Soomaaliya bisaadka oo soo salaatay way dhibi inuu gabadha daawo maraso oo gacanta wax u gelin way fahamso way dhibi waxa la gaaray kuwa muslimiin aan ahayn oo Kenyaanka iskula nooleenahay intay niqaabkii soo xirtaan masaajidka hortiisa istaagayeen maalinka jumcada iyo maalin kastaba wala salaamu calaykum ku dhahay salaamu calaykum ku dhahay wax la siinay qoraal baa laga sameeyay markaas oo kale waxay dheen intaan ka helno ما شقيسن كرنا بالمال وحن كهلنا هذا وان شقينا أنا ما شقين كرنا
nool bay u noqotay inaysaa ku sheegay way fahamsama marka horta ninka Soomaaliga inuu keligii sida hadda Nigeria oo kala dad yar intay iska qaataan wixii ay buuxsadaan inta kalena habaabaan ay dhahan ma dhacayso Soomaaliya waad garsama dadka wada dhashay dadka waa hal identity waaya hadda ana hadda inta ka taga 10 qof baa telefoon ku soo diray oo Soomaali oo dhanbe oo hawiye iyo daarood iyo maxay ahayd dir iyo maxay ahayd digil iyo meefla kulli leh oo kulli qaraabo leh waxa soo hatta kuwa qaraabo ahayn macrifadii hebel faarax oo ninka odayga ahaa meesha ugu jiray ahaa waa lagu soo diray waxa lagu ornay waxa ay xasaasiga maanta maxaa qaban kartaa waad ku qasbanti waaya marka our social structure is such that it does not allow that. You know, that's why you never see ma arkaysid nin Soomaali oo very rich ma arkaysid nin Soomaali oo inta badan destitute na way yaryihiin hada failed state ee Soomaaliya waxa Congo iyo wadamaha kale ka jiro kama jiro xamar ee Soomaaliya waa dad hadana iswato oo is ma arti wax wado isgaarsiista you get my point ha destitution maalka hadlaafke ma jiro tii marka maxay beeraysaa social structure and caadiyan in loo hagaajiyo Soomaali wax alla wixii kheyraadka soo baxdo ay Soomaaliya dhanba ka muuqato waaya su'aasha ugu dambaysan rabaa inaan arrimaha Soomaaliya kusoo gabagabay mudana Faarax waxay tahay si shidaalka iyo muxuu ahaa kheyraadkana loogu wada faa'iideysto nabad u noqdo doorashana waxa weeye heshiis weyn loo qabto maxay maanta u baahan yihiin siyaasiyiinta Soomaalida illa wada fariisto la wada hadlo waan dhaxgelina anagana aan isku keenan ka shaqeynina waa maalin waxaan nin dad wada wanaagsan dad wada fiican tol fiican raadsada tolaan baa ku dhici marka hadda nin kasta wax yar oo ka fiican yahay yaad qaadi ka kalena wax yar oo ka fiican yahay waxay ka xun yihiin waad ka waarini laakiin hebel waa hal fi jiicanka ma jirto hadda siyaasadana ku sheegi kulli waa loo baahay Sheekh Shariif baa loo baahan yahay Xasan Ali Khayra loo baahan Farmaajo loo baahan Xasan Sheekh Maxamuud baa loo baahan ma gartalkii kulli Cabdirashiid Cabd Shakuur yaa loo baahan yahay ya Cabdiraxmaan Cabd Shakuur baa loo baahan kulli waa loo baahan Soomaaliya oo dhan wax Allah wixii mucaaradka iyo wixii cusub la loo baahan yahay in la isku imaado oo maaragtay wanaag la wada gaaro war Soomaali baa naga weyn anaga aan isku samarnay maxaan isla qaban karnaa la yiraahdo way imaan qasabay ku imaan وهاجاد بماسيه مدن فارح معلن سياسي يقونيه روعدا waa ku maasay waqtigiisa qiimaha badan ee qaybta naga waraysiga aan kula yeelanay hoygiisa magaalada Nairobi intaas aan ku soo gabagabeynaa waraysigan tan iyo kulan dambe